fadhigiisa sagaalaad wuxuu maanta u fadhiyaa in uu doorto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka. kooramka soo xaadiray ilaa hadda ee golaha sharci dejinta wuxuu marayaa 77 xildhibaan. waxaan bilaabaynaa inaynu gudagalno ajandahayna oo maanta ka kooban inaan ku furanno qur'aanul kariim kadibna aan galno qodobka dastuuriga ee ah doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. waxaan golaha ka rajaynayaa in ay noo ansixiyaan ajandaha gacantana u taagaan idinkoo mahadsan. dejiya yaa diidan yaa ka aamusay. sidaas ayuu ajanduhu ansax noogu yahay maantay. hadda waxaan u yeerayaa macallin mukhtaar macallin cabdulaahi inuu noogu furo aayadaha qur'aanka kariimka isagoo mahadsan. xildhibaan macallin mukhtaar macallin cabdulaahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كالفرق كوبات كلن كيس السقالات golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug waa noo furan yahay. waxaana ku wareejinayaa guddiga doorashada in ay noo daadihiyaan doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. ku soo dhowaada, waa mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدوانك بارلمانك قلمدوك وسيرك أمنك فدرالك بارلمانك اللوضة قولي فدرالك اللي معنا ذا قلمدوك وضياشة دغنك salaadiinta culamaa u diinka dhallinyarada dhammaan ka soo qaybgalayaasha xalfadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddaan nahay maanta guddigii doorashada waxaan noo bilaabanaya habraacii doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. maanta waa maalin weyn. waxaan rabnaa halkaan in lagu doorto madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedka galmudug. annagoo haddaan nahay guddiga doorashada waxaan rabnaa meeshaan maanta inay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo ummadda soomaaliyeed ku dayato. haddaan nahay labadan gobol, haddaan nahay galmudug, waxaan nahay dadkii keenay calanka soomaaliya iyo qarannimada soomaaliya. waxaa muhiima mar haddaan nahay dadka saas ah inay meeshaan ka soo baxdo wax ummadda soomaaliya ku faraxdo, wax lagu daydo. in badan baan arrintan shaqo badan ka qabannay si nala kugu daydo. waxaan rabnaa qof walbo halkan fadhiya inuu ka qayb qaato. waxaa looga qayb qaadanayaa qof walba waxaa rabaa inuu isdejiyo. waxaa la yidhi meeshu waa madal, intii joogtaana waa marag.
doorashadan waqti badan baa soo gelinay dowladda Soomaaliya waqti badan gelisay odayaasha dhaqanka labada gobol baa waqti badan geliyay ummadda gobolka dhamaanteed degan baa waqti badan geliyay waxa la rabaa wixii 7 bilood 8 bilood la waday mira dalkoodii ugu dambeeyay maanta meeshaan ay ka soo baxaan sida sharafta leh oo loo fadhiyo waa ka mahad celinaynaa haddana jadwalkii baan loo bilaabanaya habraaci iyo sida doorashadu u dhacayso waxaan noo daadihin doonaa xildhibaan mire ku soo dhawow كولا كولا بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad leh Ilaahayga naga dhigay dad muslimiin ah madashaan nagu karaameeyay inaan maanta goobjoog ka ahaano cidii xilka galmudug hogaamiyaha 4 sano ee soo socdo Ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu si nabadgelyo noogu dhameeyo waxaan gudagali doonaa gudiga hanaanka u shaqayn doono inta ay socoto doorashada waxa ugu horeeya doorashada qaabka gudiga ay u shaqaynayaan oo ay u qaybsadeen shaqooyinka shaqada koowaad waxa waaye yeerinta liiska xildhibaanada codaynaya waxaan noo qaabilsan xildhibaan professor Ahmed Abdirasaaq gacantaag ninkaas wuxuu yeerin doonaa dhammaan 89 xildhibaan ee codaynaysa insha Allah Ilaahay duu yiraahdo xildhibaanka uu magaciisa yeeriyo wuxuu u soo istaagayaa inuu u diyaar garoobo hanaanka codaynta labo markuu soo istaago hubinta ID-ga ama kaarka aqoonsiga xildhibaanka iyo inuu saxiixo liiska codaynta ka bacdina markii intaas ay dhacdo awal waxay noo ahaan jirtay taleefanka iyo qalabka kale oo jeeb ku wato inuu halkan dhigo laakiin waxaa badatay in xildhibaanku uu soo noqdo intay hilmaamo si arintaas noqnoqoshada aan u joojino xildhibaan kasta ee la yeeriyo ee codaynaya wax allaala taleefanada iyo wuxuu jeeb ku wato kursigiisa uga soo taganaya si hanaanka doorashada aysan noqnoqosho nooga noqon waxaan mar labaad ka codsanaynaa arintaas inay xildhibaanada nala furiyaan hubinta ID-ga iyo saxiixa waxaan noo qaabilsan xildhibaan Amal Ahmed Abdulle gacanta gabadhaas ay xildhibaanka markuu soo istaago halkaas uu iska xaadirinaya magaciisa saxiixaya ID-gana waa laga hubinaa inuusan wax wadin waa la weydiinaa kadibna wuxuu u gudbayaa qolka codaynta xildhibaanka markuu qaato warqadda codaynta uu ka qaato gudoomiyaha oo la saxiixo oo la timbareeyo wuxuu gali doonaa boxka codaynta wuxuu dooran doonaa musharaxa uu codka siin lahay ayuu u codaynayaa bixinta warqadda iyo timbareynta waxaa noo qaabilsan Maxamed Xuseen Taaliil oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada oo xubinta codaynaysa gacanta ka saari doona warqadda ay ku codayn doonto markuu xildhibaanka soo codeeyo uu ka soo baxo warqadda ku rido boxka codaynta
waxaa la wareegaya xildhibaan cabdiraxiin axmed cigaal wuxuuna ku dhawaaqayaa magaca xildhibaanka codeeyay 5 markay codaynta dhammaato soo bixinta warqadaha ku dhawaaqista waxaa noo qaabilsan cabdulaahi abuukar cali iyo xildhibaan shaacir sheego labadaas xildhibaan waxay noo qaabilsan yihiin markay codaynta dhammaato 89 xubnood waxay samayn doonaan sanduuqa ugu horeeya ayay isku rogrogi doonaan kabacdina waxaa noo furi doona sanduuqaas gudoomiyaha guddiga doorashada kabacdina waxaa bilaabanayso in la yeeriyo musharaxiintii u tartamaysay xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa noogu xigi doona tirinta codadka waxaa tirsanaya xildhibaan ka tirsan guddiga oo la yidhaahdo xildhibaan mahad kelic wuxuu tirinayaa codadka sida ay u kala haleen musharaxiinta kabacdina waxaa la isku kontarooli doonaa wakiilka musharaxiinta kabacdina natiijada ayaa lagu dhawaaqi doonaa xildhibaan mahad kelic iyo xildhibaan cabdiqaadir cabdulaahi maxamed guddiga qaabkaas ay u shaqayn doonaa insha allah ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan kaloo halkan ka yeerin doonaa qaabka codaynta ay u dhacayso sida uu qabo qodobka 47 farqadiisa 4 xarafkiisa e codaynta doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa qarsoodi waxay ku dhacaysaa hanaan qarsoodi oo box ah xarafka b golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug waxay madaxweynaha u dooranayaan musharaxii ku guuleysta aqlabiyadda 3 meelood 2 meelood tirada guud ee xubnaha golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug wareegga koobaad musharaxii ku guuleysta aqlabiyadda baarlamaanka 3 meelood 2 meelood tirada xildhibaanada codaysay ama tirada guud ee xildhibaanada ayaa wuxuu ku guuleysan doonaa xilka madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka xarafka c haddii musharaxu ku guuleysan waayo waxaa codayn labaad loo qaadayaa 4 musharax ee ugu codka badan waxaana ku guuleysanaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug musharaxii hela aqlabiyadda 3 meelood 2 meelood maadaama uu dastuurka saas qoraayo laakiin musharaxiinta madaxweynaha ay noo joogto 4 xubnood ay yihiin wareegga koobaad 3 xubnood oo ugu codka sareysa wareegga labaad soo gudbayso musharaxii hela 3 meelood 2 meelood ayaa ku guuleysanaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xarafka d haddii musharaxu ku guuleysan waayo codbixinta wareegga labaad waxaa codbixinta wareegga saddexaad loo qaadayaa 2 musharax ee ugu codka badan waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ku guuleysanaya musharaxii hela cod haldheeriya 50+1 2 musharax ee isku soo harta wareegga saddexaad waxay cod haldheeriya ku guuleysanayaan inay qabtaan xilka madaxweynaha xildhibaanada 50+1 marka 2 loo qaybiyo cod haldheeriya musharaxii hela ayaa wuxuu ku guuleysanayaa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo xilka madaxweynaha ku-xigeenka qodobka 5aad farqadii 4aad iyo alifbeetadeedu waa ka soo baxnay qodobka 5aad doorashada madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug waxaa loo marayaa habraaca doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha qaabka doorashadiisa u dhacday ayuu marayaa madaxweyne ku-xigeenka intaas waa fahnay soomaan xildhibaanada hanaankaasaan maraynaa insha allahu haddana waxaan bilaabaynaa yeerinta liiska xildhibaanada iyo qaabkii codaynta xildhibaan haddana waxaan furaynaa sanduuqyada waxaan idin tusaynaa inaysan waxba ku jirin hilmaan hadal kuma jiro intaas waa raalli aad ka ahaanaysaan sanduuqyada waxaa noo furi doona gudoomiyaha guddiga doorashada iyo ku-xigeenka waxayna idin tusi doonaan inaysan wax waraaqada ku jirin si ay u noqoto
sanduuqa koobaad waa la isla arkay gudoomiyuhu waa goobjoog wuxuu kontroolayaa sanduuqyada codaynta ay xildhibaanadu ku codayn doonaan aadaan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha iyo guddiga doorashada hawsha wanaagsan ay noo hayaan waxaa hadda la furayaa sanduuqa labaad waxaana noo hubin doona gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha guddiga doorashada iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan noo dhammaaday sanduuqadii waa la hubiyey gudoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga doorashada gudoomiyaheeda iyo gudoomiye ku-xigeenkeeda isla hubiyey adinkeena markhaatiyaad ka tihiin inta doorashada socoto dhaqdhaqaaqu waa xiran yahay waxaa dhaqdhaqaaq loo ogol yahay keliya xubinta baarlamaanka ay codaynayso oo magaceeda la yeeriyo waxaa kaloo jirta haddii ilaahay yidhaahdo inta doorashadu ay socoto haddii qof u baahdo inuu nafiso qaybta dambe waxaa noogu yaallo meelihii loogu talagalay in lagu nafiso qofkii xaalad ay la soo gudboonaato insha allahu saasay noo ahaanaysaa hawsha saasay noogu soconaysaa haddana barnaamijkaan gudagelaynaa waxaan ku soo dhoweynayaa xildhibaankii yeerin lahaa shaqada aan hore u soo sheegnay liiska xildhibaanada codaynaya insha allah deganaanshaha waa inaad nala ilaalisaan waa waajibaadkii dastuuriga ahaa ee lagu dooranayay hogaamintii galmudug madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa inaad nagala shaqaysaan waa inaad qalbi furan ku soo dhoweysaan waa in dhaqdhaqaaqa iyo sawaxan kala yeelaya waana mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم haddana waxaa inoo bilaabanayso yeerinta magacyada musharaxiinta yeerinta magacyada xildhibaanada waxaan musharaxiinta tartamaya waa 4 musharax oo u tartamaysa xilka madaxweynaha iyo 5 madax oo u tartamaysa xilka madaxweyne ku-xigeenka bismillaahi raxmaani raxiim kasoo qaybgalayaasha kulankan daaha furan ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug dhammaan waxaa laga codsanayaa inaysan sabcin inta ay socoto tirinta codadka iyo yeerinta intaba bismillaahi raxmaani raxiim codaynta waxaa inoo bilaabayaa xildhibaan dhaktar maxamed nuur gacal xildhibaan cabdulaahi xirsi maxamed xildhibaan faaduma cabdi cali
xildhibaan doctor maxamed nuur gacal waa codeeye xildhibaan cabdulaahi xirsi maxamed waa codeeye xildhibaan faaduma cabdi cali waa codaysay xildhibaan maxamed xuseen tahliil xildhibaan cabdiraxiin axmed cigaal xildhibaan amal axmed cabdulle xildhibaan axmed cabdirasaaq cabdulaahi xildhibaan cabduqaadir cabdulaahi maxamed xildhibaan cabdiraxiin axmed cigaal waa codeeye xildhibaan cabdulaahi abuukar cali xildhibaan maxamed xuseen tahliil waa codeeye xildhibaan cabduqaadir cabdulaahi maxamed waa codeeye xildhibaan axmed cabdirasaaq cabdulaahi waa codeeye xildhibaan mahad kilic warsame xildhibaan maxamed mira axmed xildhibaan shaacir sheegow maxamed xildhibaan xasan xirsi xaashi xildhibaan mahad kilic warsame waa codeeyey xildhibaan shaacir sheegow maxamed waa codeeyey xildhibaan abuukar warsame cali xildhibaan axmed maxamed faarax xildhibaan maxamed mira axmed waa codeeyey xildhibaan axmed maxamed aadan xildhibaan xasan xirsi xaashi waa codeeye xildhibaan axmed sheekh nuur warsame xildhibaan baashi cabduqaadir sheekh aadan xildhibaan abuukar warsame cali waa codeeye
xildhibaan axmed maxamed faarax waa codeeye mister usaama waa codeeye xildhibaan bayle cabdi warsame axmed maxamed aadan waa codeeyey xildhibaan cabdikariin macalin axmed maxamed xildhibaan canab maxamed cosoble xildhibaan axmed maxamed aadan waa codeeyey xildhibaan axmed sheekh nuur warsame waa codeeyey xildhibaan cabdiqadar axmed maxamuud xildhibaan cabdallah cabdi warsame xildhibaan baashi cabduqaadir sheekh aadan waa codeeye xildhibaan cabdinaasir aadan cusmaan xildhibaan cabdiraxiin axmed bariise xildhibaan cabdiraxiin faarax xirsi xildhibaan cabdisalaan cali axmed waa codeeye xildhibaan cabdiweli cali maxamuud waa codeeye xildhibaan cabdi xasan cilmi waa codeeye xildhibaan cabdiraxmaan cabdiqaadir siciid cabdulle waa codeeye xildhibaan cabdishakuur abuukar maxamed xildhibaan cabduqaadir cabdulaahi bariise xildhibaan cabdiraxiin axmed bariise waa codeeye xildhibaan cabdinaasir aadan cusmaan soomaa xildhibaan cabdinaasir aadan cusmaan waa codeeye xildhibaan cabdulaahi axmed calisow faarax xirsi waa codeeye xildhibaan cabdulaahi cali cabdulle xildhibaan cabdiraxmaan maxamed nuur waa codeeye xildhibaan cabdulaahi ibraahim ciise xildhibaan cabduqaadir cabdulaahi bariise waa codeeye xildhibaan cabdulaahi cumar maxamuud xildhibaan cabdulaahi saleebaan maxamed xildhibaan cabdiraxmaan xuseen faarax xildhibaan cabdulaahi axmed calasow waa codeeye xildhibaan cabbaas xuseen cali xildhibaan cabdulaahi faarax jimcaale xildhibaan cabdulaahi cali cabdulle waa codeeyey xildhibaan cabdulaahi ibraahim ciise waa codeeye xildhibaan cabdulaahi ibraahim ciise waa codeeye xildhibaan cumar maxamed cusmaan xildhibaan cabdirasaaq cali axmed xildhibaan cabdulaahi saleebaan maxamed waa codeeye xildhibaan cabdiraxmaan xuseen faarax waa codeeye xildhibaan daahir cabdi shiiqow
xildhibaan cabdiraxmaan xildhibaan cali xildhibaan cabdulaahi xildhibaan cabbaas xuseen cali waa codeeye xildhibaan daahir weheliye siyaad xildhibaan faadumo cabdi weheliye xildhibaan fardowsa yuusuf ciid please xildhibaan cabdirasaaq cali axmed waa codeeyey xildhibaan cabdirasaaq cali axmed waa codeeye xildhibaan daahir cali shiikho waa codeeye xildhibaan cumar maxamed ismaan magacii ka horreeyey baan ku qalday xildhibaan cumar maxamed cismaan waa codeeye xildhibaan daahir cabdi shiikho waa codeeyey xildhibaan farixiya cabdulaahi shiikhdoon xildhibaan faysal axmed daahir weheliye cabdulle siyaad waa codeeye xildhibaan faadumo cabdi weheliye waa codays xildhibaan ismaaciil mukhtaar nuunow xildhibaan fardowso yuusuf ciid waa codays xildhibaan ismaaciil bashiir axmed xildhibaan farxiya cabdulaahi shiikhdoon waa codays xildhibaan qawar axmed ciise xildhibaan qaalid cabdi xayle xildhibaan macalin mukhtaar macalin cabdulaahi xildhibaan faysal axmed cabdulle waa codeeye xildhibaan ismaaciil bashiir axmed waa codeeye xildhibaan ismaaciil mukhtaar nuunow waa codeeye xildhibaan mahad cabdi xirsi xildhibaan mahad cabdulaahi xuseen xildhibaan mahad sheekh cali cibaar xildhibaan khaalid cabdi xayir waa codeeye xildhibaan macalin mukhtaar macalin cabdulaahi waa codeeye xildhibaan qadar axmed ciise waa codeeye xildhibaan maxamed maxamuud axmed xildhibaan maxamed xasan cabdi xildhibaan maxamed sheekh axmed macalin xildhibaan mahad cabdi xirsi waa codeeye xildhibaan mahad cabdulaahi xuseen waa codeeye
xildhibaan mahad sheekh cali cibaar waa codeeye xildhibaan maxamuud diini xasan xildhibaan mursal cabdiraxmaan axmed xildhibaan maxamed maxamuud axmed waa codeeye xildhibaan mawliid sheekh cali axmed xildhibaan nuur cali cadow xildhibaan xasan baashi warsame xildhibaan maxamed sheekh axmed maalin waa codeeye xildhibaan maxamed xasan cabdi waa codeeye xildhibaan xaashi nuur diiriye xildhibaan xasan kaynaan mursal xalame cabdiraxmaan axmed waa codeeye xildhibaan maxamuud diini xasan waa codeeye xildhibaan mawliid sheekh cali axmed waa codeeye xildhibaan nuur cali cadow waa codeeye xildhibaan xasan mire sabriye xildhibaan xasan maxamed yalxu xildhibaan xuseen xirsi faarax xildhibaan sareec cabdi aadan xildhibaan yaasiin sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan xildhibaan xasan kaynaan xalane waa codeeye xildhibaan xaashi daahir diiriye waa codeeye xildhibaan yoonis maxamed shaare xildhibaan yuusuf xasan yuusuf xildhibaan xasan mire sabriye waa codeeye soo kacda sanduuq korkiisu saar xildhibaan xasan maxamed yalaxow waa codeeyey xildhibaan xuseen xirsi faarax waa codeeye xildhibaan sareec cabdi aadan waa codeeyey xildhibaan yoonis maxamed shaare waa codeeye xildhibaan yaasiin sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan waa codeeye xildhibaan yuusuf xasan yuusuf waa codeeye cid aan la yeerin haddii ay jirto xildhibaanada ka mid ah magacaaga
magacaaga kan waa la yirina xildhibaan cabdiwahaab maxamed maxamuud wuxuu ku jiraa number 31 xildhibaanada yaa ka mid oo aan la yeerin xildhibaankii aanan la yeerin magaciisa halkan ha yimaado waa laga jeekin kareynaa xildhibaan cabdiwahaab maxamed maxamuud waa codeeye halkaas waxaa inoogu eg codayntii wareegga koowaad haddana waxaan u gudbaynaa tirintii codadka waxaa la codsanayaa musharaxiinta wakiiladooda inay hore yimaadaan si guddoomiyaha gudoomiye isku rog قلقل حابسن قلقل حابسن فراش وراسن سوقات كم قات وراسن قات وكيلة المشرحين تا حسن عبد الله عسعسي ووكيل مشرح أحمد عبد كاري قرقور وكيل مشرح مصطفى عبد النور بري وهو وكيل وياي عبد الله أحمد سمتر وكيل مشرح محمد عبد الله سياد وهو وكيل وياي أحمد شير محمد فلقله وكيل مشرح داهر علي ديرشة وهو وكيل وياي مشرح مدحويني عبد الرحمن آدم سبريه أحمد عبد كارية 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 أحمد عبد كارية
أحمد عبد كاري أحمد شريف الأقلي أحمد عبد كاري 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 عبد الله أحمد سمتر أحمد عبد كاري أحمد عبد كاري عبد الله أحمد سمتر أحمد عبد كاري 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 عبد الله أحمد سمتر أحمد عبد كاري أحمد عبد كاري صندوق اللابات قدوميها أيان وفرايا صندوق اللابات إن شاء الله تعالى صندوقي كواد ومريا وانا وكذا من ان شاء الله كان كلام لو هذا قدومي gacantaadan ku qas marka furto may fur horta fur بسم الله أحمد عبد كاري عبد الله أحمد سمتر أحمد عبد كاري أحمد عبد كاري أحمد عبد كاري أحمد عبد كاري وممنوع صعب صعب كله جوجي عبد الرحمن آذن صبرية رجعنتوس عبد الله أحمد سمتر عبد الله أحمد سمتر
أحمد عبد كارية أحمد عبد كارية عبد الله أحمد سمتر أحمد عبد كارية أحمد عبد كارية أحمد عبد كارية أحمد عبد كارية صندوق قدومي سلاسة وكسو قبابي ترينتي هاز دياريان
فسانتين فسانتين ما والله كل واحد تشال كل واحد ما ينفع انت اللي قول واقع هنا ده وصل رقم قدمه نتيجة سنة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نجيتدا codadka sida loo kala helay waxaan ku wareejinay annagoo ah guddigii doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka galmudug gudoomiye najiitada ku dhawaaq بسم الله الرحمن الرحيم doorashadii golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug kal fadhigiisa koobaad fadhigiisa sagaalaad ay maanta u fadhiisteen ajandihiisuna ahay in ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka waxaa noo dhammaaday doorashadii madaxweynaha sida uu tilmaamayo qodobka 47 faqradiisa C ama A musharaxa doorashada wareegeeda koobaad ku guuleysta 3/2 codadka golaha sharci dejinta baarlamaanka galmudug ayaa ku guuleysanaya madaxtinimada dowlad goboleedka galmudug 4 sano ee soo socoto musharaxiintii ka qayb galay doorashada oo ka koobnaa 4 musharax oo ahay axmed shire maxamed falagle cabdulaahi axmed samatar cabdiraxmaan aadan sabriye axmed cabdi kaariye waxay u kala heleen codadka sidaan soo socoto axmed shire maxamed falagle wuxuu helay 1 cod cabdulaahi axmed samatar wuxuu helay 9 cod cabdiraxmaan aadan sabriye wuxuu helay 1 cod axmed cabdi kaariye qoorqoor wuxuu helay 66 cod baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ama golaha sharci dejinta oo ka kooban 98 xildhibaan 3 markii loo dhigo waxay noqonayaan 3/2 59 iyo jajab sida ku cad qodobka 47 wuxuu ku guuleystay axmed cabdi kaariye 3/2 lagu daray 6 cod sidaas darteed wuxuu axmed cabdi kaariye noqonayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug 4 sano ee soo socoto waxaan u gudbaynaa doorashada madaxweyne ku-xigeenka si ay u wada dhaartaan markii aan dhammaystirno waxaan ku soo dhawaynayaa guddiga inay noo daadihiyaan qaybta labaad ee doorashada madaxweyne ku-xigeenka ku soo dhawaada guddiga doorashada هلا فريست هذين كور رالي هلا فريست هذين كور رالي waxaa laga codsanayaa xildhibaanada iyo musharaxiinta kale iyo mas'uuliyiinta dhammaan halkan joogta inay nala shaqeeyaan fadhiistaan si aynu howlaheena u sii wadno insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم هلا فريستو waxaan gelaynaa qaybtii labaad waxaan u gudbaynaa qaybtii labaad ee doorashada madaxweyne ku-xigeenka galmudug
هلا فريست هذه كورالي هلا فريستو وعن نوصل على برنامجكي هلا فريستو وحن عطسانينا إن لا فريستو ما دام وقته نويري هاي ciidamada amniga waxaan ka codsanaynaa inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa nin walba positionka loogu talagalay ama booskiisa ha fariisto halla fariisto wakiilada musharaxiinta xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug warqadihii codaynta noo soo celiyaan wakiiladii waxaan ka codsanaynaa warqadihii inay soo celiyaan maadaama natiijada lagu dhawaaqay haye waxaan galaynaa marka horaan u soconaynaa waxaan galaynaa halla fariisto ciidamada amniga waxaan ka codsanaynaa inay fariisiyaan dadka halla fariisto borotokoolka waxaan ka codsanaynaa inay nidaamka noo ilaaliyaan halla fariisto haddana waxaan ku soo dhawaynaynaa xubintii guddiga doorashooyinka ee yeerin lahayd xubnaha baarlamaanka codaynaayo haddana waxaan noo bilaabanaya liiskii codayntii madaxweyne ku-xigeenkaan galaynaa xilka madaxweyne ku-xigeenka waxaa u tartamaya 5 xubnood insha allah waxaan galaynaa codayntii liiska xildhibaanadaan galaynaa halla fariisto محمد عبد الله سياد مشرع محمد عبد الله سياد وإنه سوء عليا ورقضي وعلانتا waxaa inoo bilaabanayso codayntii madaxweyne ku-xigeen